xildhibaan faarax cabdiqaadir oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyay ee dalka ayaa dhaliilo u soo jeediyay dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid tahay caydintii waddanka laga saaray xogayihii gaarka ahaa ee qaramada midoobay oo qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom. dhanka kalena waxa uu ka hadlay xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. run ahaantii waxaan arkaa qofka Soomaaliyeed in uu ugu tabar daran yahay ama uu ugu nasiib daran yahay marka uu aamino in dad ajnabi uu la dagaalamayo oo uu doonayo inuu iska celiyo ka adkaado iyadoo ay dhabtu tahay in qofka Soomaaliyeed loo baahan yahay inuu tanaasul u sameeyo qof kale oo Soomaaliyeed. adduunyada inaga inala joogto ama UN-ka ha noqoto ama AMISOM ha noqoto kuma imaanin maxaan ku iraahdaa dhibaato la'aan inaga ina haysato kuma imaan dhibaato inaga ina haysata ayay ku yimaadeen. marka waa erinay iyo waa ka baxnay iyo qab aan leenahay waxa leena qabkeenu wuxuu macna lahaan lahay oo uu qiimo lahaan lahay markaanan u baahnayn dadka ajnabiga ee markaanan u baahnayn. laakiin haddii aynu u baahannahay oo u baahannahay xataa marka qaar inay ajnabiga isu keenaan oo ayna wada hadashiyaan waa erinay iyo waa saarnay iyo qabkeeni iyo sharafteeni iyo waa waxyaabo kamid ah dhalanteedkii aan ku sheegay in sarcaadka waxyaabo kamid ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dalkeena joogay waxa lagu dhibsaday ma ahayn dawladda Soomaaliyeed dib u geysanayay iyo mashaakil u geysanayay dhacdo xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxdhacday oo dawladdu ay qayb ka tahay oo ciidanka nabadgelyada Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin ayuu wuxuu codsaday maadaama ciidankaas qaarkiis mushaar iyo taakulo laga siiyo beesha caalamka inay jawaab ka bixiyaan umuuraha noocaas oo kale ah. haddaad marka u haysato umuurahaas inay faragelin kugu tahay inaan lagaala hadlina aad doonaysid horta marka koobaad waxa laga rabaa inaad umuuraha sameeynin dhibka dadkaada u geysanayo. midda labaadna waxa laga rabaa inaad ka maaranto kaalmada iyo gacan horsiga inaad ka maaranto. marka dhibkiina waa sameeynaya kaalmadii iyo gacan horsigiina waa u baahanahay haddana qab iyo sharaf baan leeyahay oo la ima weydiin karo haddii la i weydiiyana cidii i weydiisay waan kula dagaalamayaa. runtii aniga uma arka inay tahay wax dow ah uma arko wax sharaf inuu soo kordhinaysana uma arko. qofka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxa ay sharaf yeelanaysaa oo qiimo yeelanaysaa markii dadka Soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin. markaas laga yaabaa in faragelinta ajnabiguna iska dhamaato inaguna dad sharaf leh oo qiimo leh inaynu noqono. arinta ku saabsan xoog baa la isku maqooninayaa iyo maxay ahayd waxyaabahana waataan haday aan ka hadlayo dadkan Soomaaliyeed way soo mareen anigu ma ogi inay jiraan qolo aan waxa soo mareen ama aanan joogin markii waxa soo dhib u dhacay ciidan xooga dalka Soomaaliyeed la dhahaan lahayn oo kumanaan iyo kumanaan ah oo hubaysan diyaarado dagaal baynu lahayn waxaynu lahayn maraakiib dagaal baynu lahayn wixii oo dhan halkay ku dambeeyeen shishay inta noo yimid nagama qaadanine inaga inta isku lahaynay oo iska baabi'inay oo sameeynay. marka wixii maalinta aynu soo marnay inaynu hadda xusuusan wayno oo aynu u qaadanno inaynu isdagaalano oo aynu dagaal ku xalino mashaakilkeena muddada kadib anigu qab iyo sharaf soo noqotay uma arko. markiina lagu ixtiraamo inaanan adduunka u baahnayn markaas ay sharafteena iyo karaamadeena ay soo noqonaysaa. waxaan doonayaa inaan sheego intaanan dawlad goboleedadan hadda la sameeynin dalka Soomaaliyeed yaa xukumay. dalka Soomaaliyeed dawladii uu wada lahaay wixii ka dambeeyo ka haray markii dagaaladii sukaaya ay dhaceen way burburtay. meelo badan oo deegaano Soomaaliyeed waxay noqotay deegaano aan la xukuminba wax maamul ah haba yaraatay aysan ka jirin. jabhada joogaan qabaa'il tagaan kooxad tagaan waxa bay noqotay. marka tii in dad Soomaaliyeed xilli hore sida deegaanka Puntland oo kaleento ay ku baraarugeen war bal inta deegaankana maamul ha loo sameeyo ha isu yimaadeen dawladnimadii Soomaaliyeedna aan isla raadinno. haddana kadib 2012 laga bilaabo dawladii aad hadda tilmaamaysay ee madaxweyne Xasan Sheekh ay ku guuleystay federaalka in la dhameystiro
oo maamul goboleedyo la sameeyo oo maamul goboleedyadaas ay noqdaan waxay dadku iska leeyihiin deegaanadaas ee degan macnaheedu waxaa weeye dowladdii waxaa u suura gashay inay dadka Soomaaliyeed wada gaarto anigu ma garanayo meesha laga keenay cudurka ah in dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ay col yihiin ama ay isdagaalamayaan anigu waxaan buu arkaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa oday iyo caruurtiis ama hooyo iyo caruurtaadu marka inay soo weynaadaan oo ay waxgal noqdaan oo ay tabar noqdaan reerkaaga dhib uma ahane waa xoog iyo awood reerkaaga ku soo kordhay haddii marka reerkaas uu khilaaf dhex yimaado khilaafka waxaa laga rabaa odayga reerka oo waalidka ah oo dowladda federaalka ah inay raadiso khilaafkaas sababtiisa tanaasulaad ay la timaado mararka qaar ay bariso mararka qaar ay u caqli celiso mararka qaar wax allaale iyo waxa dadkaas ay tabareere lagu raali gelin kara in laga shaqeeyo si reerku u wada joogo oo walaalo loo ahaado oo aynu u noqono qaran dhisan laakiin hadday suura geli wayso arrintaas oo dowladda federaalka u ekaato inay u xog sheeganayso dowlad goboleed u xog sheeganayso taa waxay sii fogeynaysaa ama nagu celinaysaa meel aynu ka nimaadnay oo ah dalku inuu noqdo meelo kala go'an oo wax xiriiroo ka dhaxeeya aysan jirin run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado anigana waxaan dareemaa runtii madaxdeennana waxay ahayd inay sidaa dareento anigu ma ogi madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxdeennu inay ku faraxsan yihiin marka adduunku isu yimaado golaha ammaanka uu fadhiisto oo 15 dal wakiiladooda ay hadlaan oo kulligood ay ka hadlaan waxaa lagaaga baahan yahay dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay